Waa maalmihii u dambeeyay ee xaaskayga inay dhasho la filayay. Waxaan wada joognay qolka fadhiga oo telefishinka ayaan isla daawanaynay. Soofada fadhiga miis yar oo hor yiilay ayaa lugaha u saarnaa, anna saliid baan lugaha u marinayay. Dareenkayga intiisa badan wejigeeda ayuu ku maqnaa si aan u akhristo haddii ay xaalad degdeg ahi soo kororto. Mar waxaan ku qasbayay inay biyo badan cabto, marna raashinka ayaan siinayay. Xabiibti ma ogtahay inay naf kale kugu dhex nooshahay, taada iyo tan nuunahaba oo caafimaad ku cun baan ku dhahayay. Daqiiqado kadib anigoo markaas u jarjaraya isbaandheeskii ay jecleed baa xanuun ku soo booday oo dhakhtarka ayaan ula cararnay. Waxaa bilowday saacado uu ila soo darsay dareen iga tan weyn. Walwalka i haya sal waan dhigi waayay oo ilbaabka qolka ay xaaskayga ku hayeen baan ag meeraysanayay. Mar aan muraayad aanan waxba ka arkayn indhaha qooraansado, mar aan fadhi ku fikiro, iyo mar inaan qolka gargaraaca ku sigto ayay iga maraysay oo xaaladayda ma sahlanayn. Digtooreesadii baa ii timid muddo kadib iyadoo ii sheegtay inaan guriga iska aado oo aan soo nasto, laakiin waan ka diiday. Waxaanan u sheegay in aniga iyo xaaskayga balan adag meel noo taallay. Qalliinkii waa lagu guulaystay oo gabar bay dhashay xaaskayga, sideeda oo kale u qurux badan. Markaan xabadka geliyay gabadhayda ayaa qol kale loo kaxeeyay, xaajiyadaydana meel halkaan ah ayay suuxsan tahay. Digtooreysadii ayaan ka codsaday inaan la joogo. Waxay ahayd qof waxgarad ah, wayna iga oggolaatay. Subaxii xigay anigoo darin xaaskayga ag taallay dul jiifa ayay iga toosisay xaajiyadayda, iyadoo dhoola caddaynaysa oo ila yaaban ayay i tiri, nabad ku toos macaane, inaad isdhibtid ma ahayn, balse waxay dhakhtaradda i tiri ma taqaanaa. Maya ii sheeg qaali ayaan ku dhahay. Inta aadan foolan baad canug haysata ayay igu dhahday, canugaasna waa adiga sow ma aha? Haa dabcan ayaan ugu jawaabay anigoo dhoola caddaynaya. Muddo kadib xaaskayga oo ilbaabka ka sii degaysa baan si fiican u sii macsalaameynayay. Maadaama maalin fasaxa ii tahay, waxaa iga hor muuqda oo aan isku diyaarinayay hawsha aan qaban doono markay iyada shaqadeeda aado. Dhowr iyo 10 jeer bay igu soo celcelisay inaan gabadheenna curadda ah caanaha siiyo. Waan ku ogahay Axmed waad caano jeceshahaye, gabadhayda masaasada ha ka cabin yaah, bay igula kaftantay iyadoo ii raacisay, waan kuu xiisi doonaa qaaligayga. Anigoo la jiibinaya kaftanka siina dhoweynaya baan haddana niyadda iska lahaa, walle inaad tahay furihii iftiinka noloshayda. Waxaa tahay mishiinka farxaddayda iyo shumac ka daaran dhammaan waaxyaha jirkayga. Waxaan isku diyaariyey kadis aan gaclisadayda ugu talagalay. Guri kala hagaajis kadib waxaan kariyey sambuuskii iyo bajiyihii ay macaantadayda jeclayd. Galab dheer ayay soo laabatay iyadoo yara daalan, ileen waa hooyo in ay marxabayso way ilowday oo waxay bilowday inay la ciyaarta gabadheeda oo markaas dhabta ii saarnayd. Ku dhowaad 5 daqiiqo ayuu qosolkooda baxayay oo dhabtayda ayay ku wada ciyaarayeen. Kadib bay sidii caadada ahayd hadallo naxariis leh iigu laabqaboojisay. Waa naf daalane, intaan kacay baan raashinkii u keenay. Markay indhaha saartay sambuuskii iyo bajiyihii iyo adduunkii kale bay haf igu soo booday oo dhan kasta dhunkasho igala martay. Xabiibi waan filayay inaad iga farxinaysid bay i tiri. Inta gacanteeda soo jiiday baan jaabka kala soo baxay fargal ama faraanti aan maalmo ka hor u soo gaday oo iyada aan la jeclaaday. Waxaan ahay adeega ka ganacsada farxaddaada. Intan yar xataa haddaan joogteeyo kama dhigna inaan guday abaalkaaga baan ku dhahay. Maalintaas jawi dhiidhiin ah iyo reerreen baan wakhtigii ku qaadanay. Kalgacaylka dhabta ah waa dareen ku kaydsan laba qalbi oo nafta ka dhaxayso oo aan kala maarmi karin, kuna dhisan daacadnimo iyo daryeel saafi ah. Jacaylka waxaa lagu caanamaali karaa, si dhab ahna loo dareemi karaa marka labada dhinacba ay daacad ka yihiin.
fiiro gaar ah, sheekadan ma ahan mid run ah ee waa mala awaal iyo sida aan jeclahay inuu Rabbi iiga dhiga mustaqbalka. Haddii aad haysatid qof sidaa oo kale kuu jecel oo aan kaa mashquulayn, waqti kasta farxaddaada ilaalinaya, oo in uu xalaal kugu dhaqdo diyaar kuula ah, waa nasiib badan tahay ee ilaalso qofkaas. Cagsigeedna waa foolxume ka danayso. Muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu asxaabta kala anfaco, waxna ku qaataana inoo sheer gareeya.